Ergeyga gaarka ah ee arrimaha argagixisada iyo xalinta khilaafaadka ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Qatar oo dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay joogay magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa uu kula kulmay aqalka looga taliyo Kenya madaxweyne Uhuru Kenyatta. Dr. Mutlaq bin Majid Al Qahtani ayaa guddoonsiiyay Uhuru Kenyatta dhambaal ka yimid amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Dhambaalkan ayaana weli lala wadaagin warbaahinta waxyaabaha ku jira. Ergeyga Qatar ayaa dhowrkii cisho oo uu joogay magaalada Muqdisho waxa uu la kulmay hoggaanka dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe. Sidoo kalena waxa uu arkay qaar ka mid ah mucaaradka iyada oo kulamada kadibna ay siyaasadda Soomaaliya qayb ahaan degtay. Dr. Mutlaq ayaa booqashadiisa Kenya waxay ku soo aadaysaa iyada oo maanta ay dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday inay soo celisay xiriirka ay la leedahay Kenya oo xiriirka labada dal uu gaaray heer diblomaasiyiinta labada dal ay kala qaataan. Al Qahtani iyo dowladdiisa Qatar ayaa saameyn xooggan waxay ku leedahay xiriirka soo laabtay Kenya iyo Soomaaliya sida ay qabaan dadka oo darasa siyaasadda gobolka Bariga Afrika. Dowladda Qatar ayaa la aaminsan yahay in 4tii sano ee la soo dhaafay ay galaangal xooggan ku lahayd Soomaaliya iyada oo gaartay xitaa in xubno ka tirsan mucaaradka Soomaaliya ay ku eedeeyeen inay si toos ah u taageertay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dr. Mutlaq Al Qahtani ayaa hogaaminaya wadahadallada kooxda Taliban ay kula jirto Mareykanka iyo dowladda Afghanistan. Wadahadalladan ayaa maraya meel wanaagsan. Sidoo kale dadka ka falanqooda arrimaha Al-Shabaab ayaa waxay aaminsan yihiin in dowladda Qatar ay awooddo in Soomaaliya iyo Al-Shabaab ay ka dhex furto wadahadallo arrinta oo dhammayn karta dhiigga ku qubanaya Soomaaliya. Saciid Qarafaan, Universal TV, Nairobi.